qiso waa ay dhaafta ee waxaan ku tilmaami karnaa nasiibka cidna gooni uma lahan garashada mararka qaar way ku saacidi kartaa wixii alla uu kula soo doonana cidna kaama celi karto qisada maanta idiin soo gudbinayo ciwaankeedu wuxuu yahay ninkii qamri cabka ahaa ee sabab u noqday inay soo hanuunto gabadhan eena qaadato diinta islaamka ayaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas waxaana ka daawanaysiin aaladaha baraha bulshada aan ku leenahay sida YouTube, TikTok iyo Facebook oo inoogu wada qoran yihiin Socdaal 24 qisadani waxay ku bilaabanaysaa sida tani ninkan waxa uu ahaa nin aad u isticmaalo qamriga habeen walba waxa uu waqti ku soo qaadi jiray goobaha lagu cabo qamriga asaga oo aad ugu dhacsan nolosha ayuu mar walba waxa uu daawo jiray gabdhaha imaado halkaasi ninkan aan idiin soo gudbinayo qisadiisu wuxuu ahaa nin Carab ah inkastoo san heesan diinta islaamka haddana waxa uu ahaa mid aaminsan diinta macaankeeda ninkan Carabka ahaa mar walba isticmaalo qamriga markii uu dhameystay kadib ayuu gabar ee meesha iska barteen oo ayadana cadaan ahayd ayuu mar walba waxa uu ku dhihi jiray maad iska qaadinta diinta islaamka aad ayuu u fiican tahay waxaadna noqonaysaa qof wanaagsan gabadhuna waa iska dhageysi jirtay maadaama ayadana qamriga aad u isticmaashay labadooda halkaas ayay saaxiib ku ahaayeen mar walbana waxa ay cabi jireen qamrigaas ayaga oo si xad dhaaf u cabi jiray habeen walba iyo dharaar walba sidii uu ugu celceli jiray gabadhii maalin walba qalbigeeda aad ayuu sii jilcayaa ayadoo isweydiinayso diinta islaamka waxa ay tahay ninkii maalin walba markii uu qamriga cabo ayuuna gabadhii sidaas ku hanuuni jiray inkastoosan inta uusan qamriga oosan cabin qalbigiisa aysan soo gelin gabadhan inuu waaniyo gabadhii ayaa maalmaha ka mid ah waxa ay samaysay inay qof walba ay taqaano ula noqoto ama ay weydiiso diinta islaamka waxa ay tahay waxay u tagtay dad badan oo aanan haysan diinta markaas ayayna ugu jawaabeen soo raadi anaga waxba kama naqaano sidoo kale dad badan oo muslimiin ah ayay weydiisay markaas iyada oo ka raadinayso jawaabta ugu muhiimsaneed laakiin ma aysan u suurtagelin inay ka hesho markii dambe waxa ay tagtay goob lagu iibiyo kitaabo sidoo kale waxa ay tagtay goob ay ku qoran yihiin ama kitaabo ay ku qoran yihiin quraanka kariimka sidoo kalena ay ku qoran yihiin luqadda markaas ay taqaano halkaas ayana waxa ay ka bilowday barashadii akhris dheer kadib gabadhii qalbigeeda aad ayuu u jilcay waxayna faa'iido wax badan ayay ka faa'iiday markaas kadib waa ay soo baxday gurigeedii ayay imaaday sidaas ayayna ku qaadatay diinta islaamka waxayna noqotay gabar soo muslintay ayada oo dhar waaweyn wadato oo xijaaban ayay habeenada kamid ah waxa imaaday halkii hoteelkii ahaa ee mar walba qamriga ay ku cabi jirta halkaas oo ay markay imaanayso markii hore ay soo qaadi jirta dharka haafka ah sidoo kale ma aysan xijaabnaa jirin oo dharkeeda oo jirkeedana ma aysan asturi jirin laakiin caawa dareenku wuxuu ahaa dareen kale oo qurux badan jirkeeda aad ayuu asturnaa quruxdeeduna wuxuu ahaa qurux kale oo aad u sareyso halkii markay imaado indhaheedu waxa ay si kaliis ah ku qabteen wiilkii qamriga isla isticmaali jireen eena sabab u noqday inay qaadato diinta islaamka asagu muusan arkin oo qamrigiisa ayuu iska sii isticmaalayay markaas kadib ayay gabadhii waxa ay ku oratay waad mahadsan tahay abaalkaadu waxaan ku guda ma garanayay waxaad ii samayso wax oosan qofna ii samey karin maantana waxaan kuugu bishaareynayaa inaan soo muslimay oo qaatay diinta islaamka ayay gabadhii sidaas ugu jawaabtay gabadhii markaas kadib ayay dhahday aniga mar walba garabkaada ayaan ahay wax walba iga codsatana diyaar ayaan ku ahay walaasha ayaan ahay garabkaada ayaan taaganahay waxaan kuugu mahad celiya ma garanayo wiilkii ayaa markaas dhahay Allah waad isbedeshay waad qurux badan tahay ahawa dharkii haafka ahay adigoo qaawan ayaa halkan ma jirtay markaas ayay dhahday adiga ayaa sabab u ahay inaan qaato diinta islaamka sidaas ayaan ku soo hanuunay ayay dhahday wiilkii waa uu cabsan yahay
waxa loo sheeganayana ma garanayo laakiin waxa uu og yahay in gabadhan uu wax u sheegi jiray gabadhi ayaa ku soo koobtay anigu waan ku abaalgudi doonaa laakiin ma garanayo waxaan kuugu abaalgudo laakiin waxaan jeclahay mar walba in aan kuugu xasuusto sida aad sabab ugu noqotay in maanta aan ahay qof muslim ah oo haysto diinta islaamka gabadhi ayaana ugu jawaabtay mar walba garabkaada ayaan ahay maxaa jeceshahay inaan kuu sameeyo markaas ayuu wiilkii dhahay anigu hadda wax marwar ah malihi adiguna ma tiid xaas ka waran haddii aan samaysano nolol oo aan isguursano gabadhi oo aad ugu faraxsan oo sidoo kale wiilkii uu abaalka u sameeyey sababna u noqday in ay qaadato diinta islaamka ayaa mar qura waxa uu ku jawaabtay haa diyaar ayaan u ahay wax aan ka qabo ma lahan haddaan adigu ku helayo diyaar ayaan u ahay halkaas ayay isku arooseen wiilkii iyo gabadhii halkaas ayayna ilaa hadda waxa ay ku yihiin famil dhisan ninkan wuxuu ahaa qamri cab laakiin qalbigiisa waxa uu mar walba gabadhan ugu celceli jiray ama qalbigiisa ilaahay inuu waxa uu ilaahay soo geliyay in gabadhan mar walba uu sheego in diinta islaamku ay macaan tahay adiga ayaa sabab u noqon karo bulsho fara badan oo aanan haysan diinta islaamka in ay qaataan qisadan nuxurka ee leedahay ayaa waxay tahay horjoogo u noqo qof walba oo aad soo jeedi kartid adiga uu ku soo jeedinayo barashada diinta islaamka iyo sidoo kale inuu noqdo ruux muslim ah waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal waxaad ka daawanayseen aaladaha aan ku leenahay baraha bulshada ee noogu qoran Socdaal 24 sida YouTube Facebook TikTok intaan ku kulmi doono qiso noocan oo kala nabadgelyo waxaana la soo wadaagay mid kamid ah saaxiibadeena nagu xiran adigoo haddii aad haysid qiso noocan oo kala waadna la soo wadaagi kartaa intaan ku kulmi doono qiso noocan oo kala waa saaxiibkiin Socdaal oo idin leh isma dhaafno